عبد الله فرماجو aan rabo halkan isna inaan uga mahad celiyo sidii sharafta lahayd uu dalkan ku soo hogaamiyay iyo sidii sharafta lahayd oo xil wareejinta iyo qoris ku dhibka u sameeyay isagana waa uga mahad celinaya waxaan rabaa sidoo kale madaxweyne maxamed Cabdullaahi Farmaajo maanta shacabka Soomaaliyeed u sheegaya wada shaqayn fiican iyo walaaltinimo waan soo dhaxmartay bini aadana leeyahay waa ilkii carraba dad isugu dhaw isqaniinaan waana sheegay oo madaxweynaha aadan isula shaqeynay laakiin dhibka Soomaaliya haysta waa sheegay waa milkiilaha Soomaaliya laakiin waa laga baxayaa milkiilaha waa laga baxayaa macna ma lahan laakiin wada shaqeyn inaan u mahad celiyaan rabaa si official ah aan u dhaho madaxweyne maxamed Cabdullaahi Farmaajo wixii dhacay Cabdullaahi Axmed Salfi waa wada shaqeynay Soomaaliya meel wanaagsan aan soo gaarsiinay waa run doorashada stakeholders ama milkiilayaal fara badan ay lahayd oo ka mid yihiin dawlad goboleedyada oo shanta dawlad goboleed ay ka mid yihiin xukuumadda ay ka mid yihiin musharaxiinta ay ka mid yihiin ururada bulshada dhammaan dadkaas oo dhan ay ka dhaxaysay doorashada runtiina waa doorasho adag qof kasto aniga iga horeeyay oo horay dawladda uga tirsanaan wuxuu ii qiray inay doorashadan ay doorashadii ugu dhibka badneed oo doorasho dadban ah laakiin waxaan ku soo gaarnay doorashadii inay dalka doorasho nooga dhacdo marka la yiraahdo Soomaaliya oo doorashada ah ayaa naaqooda ka ahaa saan u soo wada dekadiina ilaahay alxamdulillah dekadiyan keenay dad baa ka xumaaday oo markabkii markuu yimid ku caariyay waa run laakiin shacabka Soomaaliyeed danta guud laga fiirinaya markabkaas oo shacabka Soomaaliyeed ay saarnaayeen dekadii ayaan keenay waxaana ku xirnay ilaahay nasiib uga dhigay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo tareen dekada la taagnaa tareenkii wixii ku wareejiyay marka madaxweyne xasan sheekh maxamuud tareenkiisa oo sheegay basoo awal watay laakiin tareenu ka soo dhigay sidoo noo sheegay tareenkii aniga dadka ku wareejiyay ilaahayna waxaan uga baryayaa tareenkaas uu wado inuu meel fiican Soomaaliya uu ku xiro oo station ugu wanaagsan oo nabadda ah uu ku xiro oo doorasho toos ah oo qof iyo cod uu gaarsiiyo dastuurka oo dhameystiro maxkamad dastuuriga la sameeyo dalkana barwaaqi baraare la gaarsiiyo ayaan u rajeynayaa madaxweynaha waan u soo duceynaynaa